marka xiga aniga culummo maahi culumadiina ama waa fadhiyaan ama magaalada Buurkasi ku maqan yihiin nin aad u garaad yar aqoon badan aan lahayn ayaan ahay inaan wax wacdiyo ama u soo bixiyo way iska noqoto laakiin dad badan oo iga mudan jira dadka iga mudan khayr Allah siiyo kulli ana la yeeray inaan uga fakar yarahay ugu aqoon diineed yarahay ay u badan tahay marka ilaahay horta inaan ka baqno oo ilaahay annagana abuurtay marka koobaad aan ka baqnaa loo baahan yahay dhamaanteen wacdi siisaba dhamaantiis waa ilaahay aan ka cabsano inaan ilaahay ka baqno oo ilaahay wax walba u celino awoodda asaga leh asaga xabiya biya naga abuuray wax aan waxba ahayn oo naga abuuray ilaahay inaan awoodda u celino oo aan markaas ka baqno oo waajibaadkiisa aan qaadano wixii uu nafarana aan fartoono wixii uu naga reebana aan ka reebnaa loo baahan yahay ilaahay hana leeshiyo taas waa intii wacdiga mid danta guud gudoomiye xilka wareejiyay jaamac iyo kuwii ka horeeyay waa mahadsan yihiin khayr Allah siiyo gudoomiyaha cusub welcome lana ku soo dhawow waa gudoomiyaha cusub oo hadda hawshiisu kow tahay ilaahay waxa la qabto wadada xaqana asagana Allah marsiyan leen gudoomiyaha cusub dardaaran iyo talo iyo la shaqayn ayuu leeyahay mucaarad ma laha qofkii mucaarada gudoomiyaha cusub oo caqabad ku noqda waa qof Somali community caqabad ku noqday Somali community ayuu caqabad ku noqday xumaanta oo la yimaado toosin wax la yiraahdo waa la sii karaa talada toosan waa la sii karaa laakiin sidii sabab bulshada Soomaaliyeed Soomaali weyn ayaan wax ku noqonaynaa gudoomiye Yuusuf waxaan u dhiibnay oo caawa uu la wareegay xil weyn aad u weyn uma aanan dhiibin warqadaha yar calaamada yar yarka oo isteediyadu sameysteen ama dawlado kale ku hoos jiraan ama meeshii buuq ka tagnaayo awlaad deganaa jirna ha joogaanay calaamada yar yarka uma aanan dhiibin shanta Soomaali midkay ku qorantaa u dhiibin berrika maalina waa ka rabnaa haddaan ilaahay ma yadhin ayadii kan markuu soo diyaarinayo guddiga inshallah soo diyaarsho kaleeto iyo shanta Soomaaliya oo doorasho gashan ka rabnaa Yuusuf Allah haleeshiyo inshallah billahi kariim bulshada Soomaalida waxa laga rabaa wax aysan ayagu samaysan u samaysmi maayaan mana u hagaagayaan haddaan asluub iyo hadal wanaagsan iyo toosin iyo talo haddii aan lala imaanin waxba ma noo hagaagayaan wax noo hagaagi karaa ma jiraan waxaan anagu samaysano salligii aan anagu goglano hadduu dhiiqa yahan asaan ku fariinayna hadduu wanaagsan iyo nadiif yahan asaan ku fariisanayna waa inaan ogaanaa waa Yuusuf aniga igu jufo maaha iyo ma aragtay aniga ima xiga iyo ima xariiriye iyo ilama socdo iyo ma loo baahna Yuusuf waa member Soomaali u taagan nin jufa maanta maaha member Soomaali u taagan waay Soomaaliyan ka rabnaa ayadaan u dhiibanay ayadaan kula shaqeynayna waa inaan saas ogaanaa horta haddii aynaan saas yeelin oo aan wixii xirayo daba furfurno oo waa reebel waaya hogta meesha ka qurmay waa reebel waaya aan iraahno hogta waa hulkeedii meesheedii aan u soconaa waxa meeshaana keenay oo ummadda Soomaaliya soo qaxiyay dal qaniya iyo dad hawo qaniya wax walba badda qaniya beerta qaniya xoolaha qaniya wax walba noo qaniya inta iscuna si xorxorti aan soo kala cararna meeshaas ugu nimid kii awal wax soo qaninay inna waa ka daba yimid marka waxaad yeeshaan isma hurtaanahay dhamaanteen gobol iyo degmo kastoo laga yimid isma hurtaanahay calanka shanta gees loo buluug ahaan leenahay asagaan maarata ku abtirsanaa Soomaali baana loo yaqaan Soomaalida aan ku shaqeyno aan ilaahay ka cabsano masaajidada iyo meelaha khayr ka jira aan tagno aan wacdiga dhageysano tafsiira ka socda masaajidka wuxuu socdaa 5 bilood ku dhow socdaa tafsiirkaas 13 14 ku dhageysana maalna maanta sacuurno nidhaano 15 qofood aan noqonaa maanta alla ilaa waa badan nidhaano diinta la bartay waa la yaqaana la imaamayo
warshaydaanka nagu qufulay meelaha qolalka ah inta iska dayno waxyaalaha danta guud ee Soomaalinimada leh oo diinta Islaamka ay ka mid tahay war aan xoojino war aan khayrka badino war waa iga dardaaran war waa iga odanimo waa iga aqligeyga ilaahay aan ka baqno marka koobaad ilaahay inta ka cabsano ilaahay aan horta awood siino asaga aan xasuusano marka ilaahay xasuusano wanaag iyo wax walba aan gaarayna wax walba iyo wanaag aan gaarayna gudoomiye jaamac jeceliye Yuusuf aan ku laabanaya gudoomiye Yuusuf waxa laga rabaa dad Soomaaliyeed oo gudiya oo culimo u diyaasaya member ah cid ka gees shaqeynaysa ma jirto cid ku ordayda ma jirto waxa uu talaa ka rabo waa helaya waa in gudi Soomaaliyeed oo Soomaalida matala oo culimo u diin leh oo bari kam ala asaga la shaqeey wax walba u fuday waa inuu dhistaa waa in la shaqeeyana anigu intaasaan soo jeedinayaa ilaahayna aan ka cabsano oo dariiqa xaq qaadano sidiisa dadkii Soomaaliya aasay ilaahay ha u naxariistay nimankii aswaelahay markaan soo qaato waxa 13 nin aayeen markii isu yimaadeen waxay yiraahdeen war maxaan noo danaan ku shaqeynaa oo dalkii aan ku wadi karnaa oo aan gumaysigan dhibka badan uga bixi karnaa waxa la yiraahdo horta sideedaba Soomaali yaana horta anagu Soomaali yaan ka nahay Soomaali qoftiin tira aan turiyayno Soomaali aan nahay Soomaaliya ka tahay qofkii yiraahda Soomaali yaan nahay qofkii Soomaalina sii weydiiyay ka sii taayira albaabka ka xiran siisaba iska diin wasaq iyo uusubna la galay meel fiicnay marka ilaahay subhanahu wa ta'ala dadna waxbay soo wadeen muddo maaragtay dawladii taariikhda weyneeda ka dambeysay oo aan ku gardaroonay waa ku gardaroonaa qaba waa ku gardaroonaa waxa weeye waxa aan maanta haday dad la duushay dad layday waxa aan nahay diiday san qabo aniga hadda maanta nin kasto gabiyana inta ka gabiyo dadka gabiyada tiriyo inta ka gabiyana waxay yiraahdeen meesha aan joogno ay nala diidanayeen markaas waa basaxnaayeen bini aadan kastana qalad waa ka dhacaa oo qalad uu jira qaladna uu ka dhacaa laakiin waxa saxda in laga raaco wax walba marka waxaan isku ognahay oo dardaarna Yuusuf in la shaqeeyo asaguna ummadda loo dhiibay ee Soomaali weyna inuu member siman u noqdo oo uusan memberkaas loo dhiibay meelna uga leexanaan ku dardaarmayna uuna duceeyna ilaahay ku asuraan leen ilaahay wadada toosan ha marsiyaan leen Soomaali weynta burukis joogta iyo kuwa naga maqan xaq Allah nadso qabyaalada iyo qurunka iyo qashankan Allah naga saaro ilaahay subhanahu wa ta'ala hay Soomaaliya dalaala khayr qabta Allah u soo dajiyo sidii sabab qalbigaaga hadaad nadiif ka dhigato ilaahayna ducadiisa ilaahay aad barido ilaahay wuu ka aqbalaya ilaahu naga aqbal ilaahu wanaagana tus ilaahu xaqana tus ilaahu xaqana ugu asur ilaahu rabbi oo sharta iyo dhibaatada iyo qoqobnaanta iyo qabiilka ilaahu naga bixi ilaahu waxaan ku weydiisaynaa Soomaali weyn oo raas Casayr iyo raas Kamboni isu calool xaaran oo wada shaqeeyda oo memberkeedii Soomaalinimo ilaashta ilaahay noo soo saaro dadkeena burukisna aan iska dayno iska daba wareega iyo waxa midda toosan ha laga raaco midda toosan aan ka raacno ilaahay hana asturo ilaahay hana caymiyo ilaahay dhibaato waan qabatay ilaahay hana asturo xaqana Allah na waafajiyo wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh